habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada xarunta wararka ee dunida ee London qodobada wararka caalamka caawa ugu waaweyn wararkii argagixisay ee London ra'iisul wasaaraha Britain ayaa sheegtay in 7 qof ee Sabtidii la dilay uu ahaa weerar ka dhana adduunka xorta ah dagaal diblomaasi ayaa ka qarxay bariga dhexe 6 dal oo Sacuudigu hogaaminayo ayaa xiriirkii diblomaasi u jaray wadanka Qatar kusoo dhawow shirkadda Choco Togo arday ka tirsan dalka Togo ayaa ku shirkoobay shirkaddan shukulaatada waxaa lagu qabtay London xus shumac loo shiday dadkii wax ku noqday weerarkii Sabtidii ka dhacay 7 qof ayaa dhintay kadib markii 3 nin ay gaaray jiirsiiyeen dad buundada London dul lugaynayay kadibna ay midi la dhaceen dad ku jiray maqaayado iyo baarar halkaasi ka agdhawaa 48 qof ayaa dhaawacmay 22 ka mid ah ayaa xaaladoodu ay liidataa dad badan oo ajaanib ah ayaa iyana wax ku noqday booliiska ayaa aaminsan in gudaha laga abaabulay weeraradan argagixisay ee ugu dambeeyay cabdiraxmaan bidhaan ayaa ka waramaya halkani waa suuqa Borough Market oo ka mid ah meelihii uu weerarku ka dhacay waxaa muuqaal halkan ka duubaya Florin Maruru oo u dhashay dalka Romania intii uu carari lahaa waxa uu babac dhigay kuwii dadka weerarayay ee midiyaha la dhacayay kuwaasi oo iska hor yimaadeen waxaan xaqiiqdii mooday inaan halis ku jiro saxanka rootiga ayaan ku tuuray mid ka mid ah kuwa weerarka qaaday waan arkay inuu ka leexday mid labaad ayaan marka madaxa uga dhuftay waxa kaloo uu 20 qof ku qariyay roodhiilaha uu ka shaqeeyo dadkan iyo qaar kale oo badan ayaa waxa isaga ku tilmaamaan inuu sameeyay geesinimo habeenkaasi weerarku dhacay laakiinse waxaa dhintay 7 qof waxa kaloo dhaawacmay oo cusbitaalka jiifa 20 qof oo aad u liita Chrissy Archibald oo 30 jir ah oo u dhalatay dalka Canada ayaa ka mid ahayd dadkii ku dhintay halkaasi waxay Canada uga timid si ay ula noolaato ninkeeda laakiinse waxa ay ku dhimatay dhabtiisa weerarkan waxaa lagu soo qaaday London iyo Britain balse sidoo kale waxa uu ahaa weerar ku socda dunida xorta ah ka subaxii hore ciidamada ka hortagga argagixisada ee magaalada London ayaa waxa ay hawlgallo ka fuliyeen xaafado ku yaala waqooyi bari ee magaalada iyaga oo 2 guri bartilmaameedsaday si ay u soo qabtaan dadkii weerarka qaaday ciddii ay isku xidhnaayeen booliska ayaa shaaca ka qaaday inay garanayaan haybta 3 qof ee weerarkaasi soo qaaday iyada oo kooxda sheegata dawladda islaamigiina ay sheegatay inay ka dambeeyeen weerarkaasi laakiinse boolisku waxa ay ka shakisan yihiin in kooxdaasi ay si toos ah ugu lug lahayd weerarkani duqa magaalada London ayaa isagu cambaareeyay weerarkan waxaana uu sheegay falal xun oo fulinimo ayay ahaayeen falalkii ay geysteen 3 nin habeenkii Sabtiga waxaan ka xanaaqsanahay in 3daasi nin ay tallaabooyinkooda marmarsiyo uga dhiganayaan caqiido aniga aan aaminsanahay oo ah islaamka weerarkan wuxuu ahaa kii 3aad ee ka dhaca dalkan Britain muddo 3 bilood gudahood iyada oo weli ay jirto foojignaanta sare ee laga baqayo in weerar kala dhaco Sacuudiga Bahrain dalka isu taga Imaaraadka Carabta iyo Masar ayaa xiriirka u jaray dalka Qatar oo ay ku eedeeyeen inuu argagixisada taageero warbixin ka soo baxday Sacuudiga ayaa lagu eedeeyay Qatar in ay dhowr urur oo argagixiso taageerto sida ururka la baxay dawladda Islaamka mas'uuliyiinta Qatar ayaa dalalkaasi laga saaray waxaana la hakiyay diyaaradihii Qatar tagi lahaa xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegaya in uusan go'aankaasi ka filaynin qaar ka mid ah dalalka gacanka Carabta. We certainly would encourage the parties to sit down together. run ahaantii annagu waxaanu jecel lahay in la xalilo wixii khilaafaad ee jira oo miiska wada hadallada la wada fadhiisto waxa kale oo rabnaa in wadamada ku bahoobay ururka khaliijka Carabtu ay midoobaan oo ay midnimadooda halkii ka sii wadaan isla markaana waxaanu rajaynaynaa in aanay cawaaqib xumo halkaasi ka soo bixi doonin waxa kale oo aanu filaynaa in lala wada dagaalamayo argagixisada gaar ahaan hadday tahay gobolkaasi iyo hadday tahay caalamkaba sidii dhowaan looga wada hadlay shirkii Riyaad ka dhacay ee la isku afkartay in Daesh iyo argagixisada kalaba lala dagaalamo in the fight against terrorism and the fight against Daesh, ISIS, and have expressed that most recently in the summit in Riyadh.
haddaba qatar hadda waa cidlo kadib markii si kadisa xiriirkii loogu jaray saamayn noocee ah ayay gobolka ku yeelan kartaa arrintani wariyaha b b c da ee bariga dhexe alan johnson ayaa sharaxaya. The Qataris deny all the allegations against them. They say that qatar waxay beeninaysaa dhammaan eedeymaha loo jeediyey. waxay sheegaysaa in dhibane ay u tahay olole dalka lagu wiiqayo laakiin waxaa muddo ka dhex taagnaa labada dhinac qalalaase. qatar waxay u muuqatay inay qaadayso tallaabo aysan qaadin dalalka dariskeeda ah. tusaale ahaan qatar waxay go'aansatay inay la safato islaamiyiinta bariga dhexe sida ikhwaanulmuslimiin oo khilaaf uu kala dhexeeyo masar iyo sacuudiga. qatar waxay sidoo kale taageertay ururka xamaas halka sacuudigana uu taageero ururka fatax ee falastiiniyiinta. dalalka deriska la ah qatar waxay aalaaba ka caroodaan warbaahinta saldhigga ku leh dooxa oo ay sheegeen inay eedeeyaan hogaamiyayaasha sacuudiga imaaraadka iyo masar. haddaba markan waxaan aragnaa dalalka sacuudiga imaaraadka iyo baxrayn iyo masar iyo kuwo kale oo ku heshiiyey in qatar ay cadaadiyaan. waana tallaabo si wada jir ah looga shaqeeyey. waxay isku dayeen inay qatar qad dhexe keenaan laakiin way suurageli weyday. haddaba xaaladda way xun tahay. maxay tahay sababta? madaxweyne trump waxa uu beddelay qayb ka mid ah arrimahan wuxuuna sacuudiga iyo imaaraadka u ballanqaaday in caqabadaha bariga dhexe uu aragtidooda kala mid yahay. waxayna labadaasi dal u arkaan hadda in qatar ay tahay wakhtigii ugu habboonayd ee loo digi lahaa. waa siyaasad arrimo dibadeed oo keli ahaan taagan. waa kala duwanaan aragti oo aan loo dulqaadan karin. hadda maamulka qatar waxaa suuragal ah inay cidlo dareemayaan halkii keligood ay waxa ugu yar dhihi lahaayeen. bal markan aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka dunida ee maanta. ugu yaraan hal booliis ah ayaa ku dhintay in ka badan 20 oo ay ku dhaawacmeen markii uu qarax ka dhacay saldhig booliis oo ku yaala magaalada Kismaayo. falkan ayaa dhacay maalin uu ka hor booqasho la filayo in magaalada uu ku tago madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in aanu laba hadlin taliyihii hore ee ammaanka ee Mareykanka Michael Flynn casho ay ku yeesheen Moscow 2015. sawir aad internetka loo geliyay ayaa sii kordhiyay hadalhaynta xiriirka ka dhaxayn kara madaxweyne Trump maamulkiisa iyo Kremlinka. wuxuu u sheegay telefishin Mareykanka NBC in mar dambe uu loo sheegay ninka uu Mr. Flynn ahaa. madaxweyne Trump ayaa Twitterkiisa ku weeraray wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka sidii ay u maamushay qorshihiisii uu kaga mamnuucayay dalka Mareykanka inay yimaadaan dadka u dhashay 6 waddan oo muslima. Mr. Trump ayaa sheegay in wasaaraddu ay ku khaldanayd waxa uu ugu yeeray inay siyaasadeeyaan amarkiisii maxkamadda sare ayuu hadda la yaalaa. ololaha doorashada guud ee Britain ayaa dib u bilowday maanta 2 maalmood kadib markii uu weerarku ka dhacay magaalada tan London iyadoo ra'iisul wasaaraha lagu qasbay inay difaacdo shaqadeedii booliiska iyo la dagaalanka argagixisada. Soomaalida oo inta badan taageerta xisbiga Labour-ka ee shaqaalaha ayaa waxa iminka soo baxaya dhalinyaro taageerta xisbiga Conservative-ka ee talada haya. wariyaha BBC-da Qaalib Xasan Baaruud ayaa booqday xaafad ay ku badan yihiin Soomaalida oo ku taala galbeedka London oo warbixintan nooga soo diray. halkani waa degaanka bartamaha Ealing iyo Acton. waa xaafad ka tirsan London oo ay ku nool yihiin dad kala duwan. ma jirto mid ka mid ah jaaliyadaha adduunka oo aan halkan laga helin. waana degmo Soomaalidu aad ugu badan tahay. degmada Ealing waxay ka mid tahay goobaha ay aad ugu loolamayaan xisbiyadu. xildhibaanka degmadana waxa uu ku soo baxay in ka yar 300 oo cod doorashadii guud ee la soo dhaafay. inta badan Soomaalida halkan ku nool waa kuwa u codeeya xisbiga Labour oo siyaasaddiisu tahay bidix dhexe. Soomaalidu siyaasad ahaan waxay daneeyaan arrimaha bulshada siiba kuwa khuseeya guryo la'aanta iyo shaqooyinka. xisbiga Labour ayaa taageero badan ka hela Soomaalida ku dhaqan degmada jaarka la ah Ealing ee Shepherd Bush iyo Hammersmith. sidoo kale degmadan waxaa matala xildhibaan ka tirsan Labour. codbixiyayaasha Soomaalida ah ayaa aaminsan in xisbiga Labour uu wanaagsan yahay bulshooyinka laga tirada badan yahay. waxaan u codeynayaa xisbiga la Labour Party sababtan u codeynayo waxa waaye xisbi oo aan ogahay ummadda Soomaaliyeed oo wax badan oo furfuran ay u soo qabteen. Soomaalida degan galbeedka London waa kuwa inta badan u codeeya Labour. waxayna noo sheegeen in xisbiga Conservative-ku uusan danayn arrimaha dadka danyarta ah
sida soomaalida laakiin hadda waxaa muuqata in xisbiga conservative-ku uu ku hawlan yahay wax ka beddelka arrintan waxaan u codaynayaa conservative party-ga bishii June 8 Theresa May baan codkaygaan siinayaa sababtuna siinaa codkaygana diintayda iyo dhaqankayga Soomaalinimadu waa conservative qaar ka mid ah taageerayaashan ayaa naloo sheegay in lagu aflagaadeeyey baraha bulshada iyagoo lagu dhaleecaynayo qadiyadooda siyaasadeed xisbiga muxaafadka ee conservative-ka ayaa rajaynaya in wanaajinta xiriirka qurbajoogta Soomaaliyeed uu noqdo mid ay ku hantaan codad badan doorashada toddobaadkan Qalib Baruud BBC Somali galbeedka London ciyaartoygii Ivory Coast ee heer caalamiga ah ee Newcastle lagu ciyaari jiray Shakhtiyote ayaa dhintay afyeen u hadlay ciyaartooyga oo ahaa 30 jir ayaa sheegay in wadnuhu istaagay isagoo tababar ku jiray ay lahaayeen kooxdiisa Shiinaha ee Beijing Enterprise 7 sano ayuu u soo ciyaaray Newcastle isagoo kadibna u wareegay dalka Shiinaha markana wararka kale ciyaaraha rajadii Zambia ay lahayd inay noqdaan wadankii labaad ee Afrika ee ku guuleysta koobka adduunka ee ciyaartooyda 20 ka yar ayaa dhamaatay kadib markii Talyaanigu 3-2 ay kaga adkaadeen ciyaarta oo xiiso lahayd waxay ka dhacday Suwon oo South Korea waxaana lagu bareejiyay xilligii dheeraadka oo gool uu dhaliyay Luca Vido oo Italy waxaana gool kale fursad ay u siiyeen reer Zimbabwe qaybtii labaad waqtigii dheeraadka ahaa galbeedka Afrika waxa laga soo saaraa kookaha dunida ugu badan halkii ay gobolka shukulaato uga sameyn lahaayeenna wayba dhoofiyaan Joko Togo waa shirkad yar oo kobcaysa shukulaato asala oo gudaha lagu sameeyay ayayna suuqyada Togo geeyaan waxaa shiraako ku ah dhalinyaro isu timid Joko Togo is a cooperative. Jogo Togo waa ganacsi waxaan nahay arday isu timid markaan jaamacadda dhammaynay ayaan ka wada shaqaynay inaan dhisno mashruucan annaga ayaa hogaaminayna shirkadeenna our own company. Joko Togo is also an identity. sidoo kale Jogo Togo waa astaan shukulaatadeenna ka dhigaysa mid cusub waa tii ugu horreysay ee loo sameeyo suuqyadeenna halkaasi oo dadkeennu ay ka helayaan fursad ay ku cunaan shukulaato dhulkooda ka timid That is the beginning of Joko Togo. waa bilowga Jogo Togo sababta aan u leenahay tani waa astaanteenna waa inaan soo bandhignaa in tani annaga naga timid oo aan leenahay And this is ready now to be eaten. tani waa shukulaatadeenna oo diyaar u ah in la cuno intaan iibin waa inaan baakadaynaa The packages. We have two. laba warshadood ayaan leenahay mid waxay ku taallaa Balme tan labaadna waxay ku taallaa Lome tani macaamiisheenna ayay u dhowdahay badi dadka ka shaqeeya halkan waa arday Togo laba jaamacadood ayay leedahay mid waxay ku taallaa Lome midna waxay ku taallaa Kara The two universities that we have in Togo. waxaan siinaa fursado ay warshadooda uga shaqaystaan oo ayna waxbarashadooda ku wadan karaan To work in the factory and also to continue their study. Our dream is to produce. riyadeennu waa inaan soo saarnaa in ka badan 1 ama 2 tan maalintii inta aan kookaha dhoofin lahayn waxaan doonaynaa inaan dhoofinno shukulaatadeenna waan dhoofin karnaa kookaha si shukulaato looga sameeyo balse sida aan hadda samaynayno shaqooyin ayay dalkeenna ka abuuraysaa iyada oo wax ku kordhinaysa dhaqaalaheenna waa waxa aan ku fakarayno This also added value for our economy. That is our dream. ugu dambeyntiina tartan casri ah ayaa ka dhacay magaalada Paris toddobaadkan jidadka magaalada caasimadda waa Faransiiska ayaa martigeliyay tartanka horyaalka droniska oo duuliyaal xirfad sare leh ay ku dhex marinayeen jidadka magaalada oo waliba uu ku jiro tunnel dhulka hoostiisa oo ilaa 600 mitir ah wararkan iyo kuwii ugu dambeeyay waxaad kala socon kartaa oo aad ka helaysaa boggeena bbcsomali.com inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeennii caawa oo aad ku mahadsantihiin daawashadiina intaanu mar kale dib u kulmayno dhammaantiinba waxaan leenahay habeen wanaagsan